بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود على سود هذا وذكر قلنا قدر كير دقيقة يرى عندي بإنك قصل عني أن ورجين دورا إن مركلة فيديو هذه كده وقت يجي رسمي برامج كذا وضنتان لكن دقيقة هنا يا ربنا إن قصة قامنا بالقضاء بدأ أبوه وين إسبارتيا وزكدي عبد محمد إلى جو سادي سودو إن كل إن مكي ليفربول ها وحركة عبشوين يقود بين وكأدنت إن جول كي أنا لفتيجان أن كدوني يعني هبيكي فلقيت أو جرني فرق اللي فان نقل جديد بل عبشوي محيوك أدنى دي وجود بين محس كلاسو كل من رال هذا ورث عماية ما نكسته. جواب هرته هرا كم هي لا ينصبت عبشة وجود بين وقت قادني إن له جواب لكن ليفربول حيو وجود بين صدق كلاته عبشة إقامة مركز لقصته مقالة كلا مع ديما كلا أو موجناي إن كوحدة مان سيتي دور كورن أو كلا دوها الكورن معهن على جول نوع عسكري إن لو أقولها صدق جارو كلا دون English Premier League ayagana goolkii dhaliyeen dabcan Liverpool laga diiday waxa intaas si dheer kubadii Van Dijk dhalishay oo Liverpool ay ku doodayaan VAR system-ka ma iska dhaafay sababta ay VAR u soo fargelin waas maxay tahay waxa la isku haysto muhiimadda waxa waaye caalam wadaha 12 second gudaheed caalamku taago oo dhahe madaxa Van Dijk uu ku dhaliyay gool ma ahan intervention-ka caalam wadaha lama diidano laakiin waxa la isku haysto waxay tahay VAR maxay qabanaysaa dhacdooyinka noocaas oo kale kulligood waxa loo aadaa VAR si go'aan loo gaar marka Liverpool waxa u baahan sharaxaad in laga siiyo sababta aysan VAR u soo fargelin oo go'aanka gudaha kaliya lagu ekaadeen صفيعا مركا waxaa jiray qaladaad fara badan oo Liverpool laga galay hoosooyin baan ku baxeen garsoore Liverpool ku exday waxaan ogeyn David Courtney garsoore maanor cabay u dhahay Liverpool aska nacba dhowr qaladaad oo laga galay haddana cabashada Premier League halkan waa ku sheegnaba qaladaad dhacay oo la saxay haddana isla qaladaadkii ay soo laabteen oo kulamo qaarkood aad ku arkaysid Premier League in arintan uu ka kori waayay ma la dhihi karaa xogaa sharciyada in la dhaqan geliyo aad u adag tahay oo loo of the game-ka sida horyaalada kale loogu dhaqmaba waxaan isleeyahay horta waxay u baahan tahay seera aad oo kale tusaale ahaan marka la soo qaato waxyaabo Premier League kaga duwan waxay tahay muranka yareeyo dhacdadii maanta dhacdo 10 laga bartaa toddobaad kasta garsoorayaasha kulmaan waxa la qalad hebel dabcan dhacay aan go'aan ka qaadano si Brito hadii uu qaladkaas soo laabto go'aan cad loo qaato marka Premier League waxa problemka ugu weyn ka jira Howard Webb iyo teamkiisa waxay tahay la isku haysto horta hadda Liverpool kale goolkana laga diiday hore goolka loo ansixiyay in 10 laga barto oo laga bilaabo ciyaarta Itixaad wixii ka dhacay hadda kadib waa deeq kubada noocaas ka dhashaan ha noqoto in faarka ay go'aan ka gaaraan marna faara go'aan gaaray marna carwadaha go'aan gaaray mar garsoorka go'aan gaaray buuq badan Premier League ka jira marka Liverpoolna cawashadooda waxa hadda bilowda maaha marar badan ay cawdeen Tottenham Hotspur xitaa waa ka warqabnay ciyaar u baxeen in gool laga diiday casaana sax in la dhiibay marka sara la gelina lagu siinaa laakiin at least waxa fiican kooxdii qaladka ku dhacay in wax laga barto la sanadna oo 10kaas laga barto hadda kadib dhacdadaas ma soo laabanaysa haday soo laabatana qaabkaas lagu xalna Premier League laga laayay صفيعا ان كل واركنا استاذ قodobka kale dhankii hadda ugu waxa arkay ninkii miisi ahaa dhuumashada maxaa waaye dhuumanayo Newcam shaqaalo oo la kulmay xitaa waxa arkay warbaahinta Spain ee qoraysay teamku wuxuu ku wargeliyay inaan la baahin oo ilaa iyo isaga uu markii dambe uu baahiyay booqashadiisii maxay ku saleysan tahay Barcelona inuu hadii dib ugu soo laabto muddadii uu ka tagay kadib horta mid waxay tahay qaranwadii la aaday Inter Miami wuxuu soo saaray semi finalka xogaa marka laba toddobaad lama ciyaaray play-off-ka sidoo kale tan Barcelona kaliya ninkan intuu u soo safray from Miami to Barca toos ma uusan u imaanin Messi wuxuu qayb ka yahay ciyaartooyda xulka Argentina Spain tababar ku qaadanay marka safarka koowaad u soo baxay waxay tahay qaranka Argentina tababar la qaadanaya saa darteed marka isniintii markuu imaaday ciyaartooyda intaas wada imaanayaan tababarka la bilaabay nin Spain joogo marka Janis u haysta inuu Barcelona booqdo gaar ahaan garoon Camp Nou oo dhismihiisa hadda qayb kamid ah diyaar ah Khamiistii tababar lagu sameeyay sidaas marka uu Messi ku imaado maahane ajandihiisa ma uusan ahayn safarka Miami oo kaga imaado inuu Camp Nou soo booqdo qaranku u imaaday qaranku maalmahan tababar la sameynaya laakiin garoonka uu tagay sidoo kale uu ku soo wareegay mid kale xitaa wuxuu ballan qaaday inuu soo laaban doono hadda waxa jirta hadalhayn training ku aadan Messi waxa laga yaabaa MLS-ka markuu soo ilaaday hadda tartankan play-off-ka nidaamkan socdo qaybtan kala baxnaaga Febraayo ku egyahay in Febraayo Mars April May afarta bilo ugu muhiimsan xilli ciyaareedkan uu Barcelona u ciyaaro wayna sameyn karaan Barcelona hadda kor David Beckham imaaday Zlatan Ibrahimovic rag badan waxa jireen xilliga afarta bil MLS-ka laga nasto ee imaadaan Europe ciyaaraan marka waa macquul inuu Barcelona ku soo laabto Hansi Flick xitaa majalada Mundi waxay dhaayeen maanta arkay haduu Messi soo laabanayo madiida inuu ka faa'iideysto marka warkaas la wadwada inta World Cup la gaaray uu micnaha oo fitness si joogo sababta Febraayo istaaga horyaalka Mareykanka horyaalka jinni awaan Mars April May June ilaa July
World Cup wuxuu bilaabanaa saa ka warqabno July June bilaabana markuu World Cup dhamaado MLS waa la bilaabaya macnaha July dhamaadkeedu bilaabana marka 4 bil banooni la macquul ma odaga at least marka inuu Barcelona imaado waa maybe inuu diidano inuu nastano laga yaabo u dhaw ma imaanay safiican oo macnaha ku xiisa taa hore oo dib isaga laabta ustaadi Napoli waxa arkay madaxweynaha kooxda iyo Antonio Conte oo football Italy qorayeen kulna dhacay misleedaha mustaqbalkii Conte xoogaa mugdiya gale mugdi xoogana ku jiro wali ma jeclaysan maamulka Napoli sida uu maalin kasta u hadlay ciyaartoyda weerar ku qaado laakiin shalay kulankii la kulmay wuxuu ahaa kulan si waafi loo wada hadlay Conte media ma uusan la hadlin laakiin madaxweynaha ADL Aurelio De Laurentiis media la hadlay wuxuuna sheegay in dabcan Conte kooxda uu sii joogayo wax resignation la uu keenay ma jirto dhaw warqadan keena shaqada aan ka tagaa ma uusan dhim laakiin waxaan ka wada hadalnay xaaladan adag sidee kooxda kaga bixi kartaa Conte ana sii shaqeyn doona marka maamulku waxay xaqiijiyeen in at least uu Conte uu shaqada sii wadi doono sida rasmiga ah waxaan meesha ka saareen wararka ku aadanay inuu dabcan kooxda Napoli uu ka tagay safiican كل وأركي دونا هذه وحأركي أي أرجنتينا جمعة نحن العيارين أنغولا العيارين ماشى سفر كمرتوا جعل هذا كور مركب بحيث صد أفريقيا وسعودي أنغولا صفيان أنغولا وامي أنغولا وحكمتها وضمضة قنية يمعيشوا دونا هاي إيتاي قالية صفيان لواندا بوقن دونا كسر عيارين عاصمة هذه سفر كاس مهم دي سعودي أنا أنغولا إسكو دياريان مستقبل كمرتجلين ترتمع عالمي سيدا طبعا كوب كقرامات أفريقيا كلنا مرتجليان وعكروا ربعان ترتمع كلا دي هلي كرام جانس يكون مرتجليان هذا مركا أرجنتين إسكارس أجنا ماشكم إيمانا يعني لعق اللي 2 مليون أو أما كل واحد 3 مليون دولار كمركا لسي كلن كاس وعياران واللي بحتى في أي بهوتيل لدجينايو أمنية إلى هذا مدحوينا أمنية السجان رجاسة أمنية ميسي وسجن دان هوتيل كده مركا ميزنا شروطه وحكم ده إنه عياره دي قضية معنا إنه قرن كله صقر فول تايم حتى يولين استاذ من مدة مركا ضمضة كرمضة صحيح تلمو إيجا إسكبرية صح أفريقيا هذا العق أنكو بحلنا ميزي أنا ليلنا معناها محام عناها الدوينه أجندة فوق على مستقبلك كفكرة يعني العق تاس لبي توم كملين هذا بحناين بريك بدن هي اللي كرن أنغولا إن طبعا أنغولا ودك يا أباهم بقى ما ودنك واحد كبدن السوق اللي دونا كبدن دي أي هلا مرتجلين ترتمع عالمي إيه واحد كبدن السوق لا لبي توم كملين الدولة بحنا كبدن السوق اللي دون فور شو وكل وأنا وحورك يدبون عوين waxaa jirta ciyaartoy waxaan Julian Alvarez iyo Giovanni Simoni iyo laba qof kale afar ciyaartoy Argentina safar ka harayna la talaalka ma qabaan ku aadan viruska ka hortago coronavirus talaalkaasna ma qabaan talaal kale xanuun waxaa jiro dabcan malaria halis badan laga soo qaado duumo galbeedka Afrika talaalkaasna ma qabaan marka waxaa la shahaadada caafimaadka ku dhacay talaalkaasna hadda inta la siiyo waqti laga ma gaaro ciyaartoydaas marka Spain ku harayaan لكن ميسي وتلالين كان يعادوا على تلالين وقلت لك جنبه نصف يعني أستاذ إذا مكي أتلانتا معنك ويبوريان وحمد عن عصب إنه مقعودين أتلانتا تاني أنتي جسبرين وكتجي وريري قالين ورير أدو درنا ها معنك فيورتينا هذا لو مقعابي بلدينو مع الأدو في عوانك نكاسنا فيورتينا ويتبين فيورتينا وايد عليه أبسولوتلي كور براهاس فورنتينو wuxuu soo tagay damac waxa ku jiraan Juventus qabta Juve ku xumeeyeen laakiin macalin ani ahubo wuxuu kamid yahay macallimiinta dhalinyarada ee Talyaaniga soo baxay Fiorentino ka xooggan ka dhigay hadda Atlanta waa kala kicin doona Juric markii hore gadar u dhibtay nin Roma raacadeen Southampton Serie B ku hubsaday Atlanta ma baahan ba Juric macallin kasto Europe u wacan kareen heerka ay joogeen ayaga jawararka isgalshan xilli ciyaareedka hadda 12 kulan Atlanta ciyaareen laba kulan kaliya guuleysteen marka Juric in la raacday wuu mudnay tababarahaasna Atlanta ma uusan u qalmin isla sheekooyinka Talyaaniga hadda waxa lagu dhagan yahay Chiesa inkastoo macalinka uu difaacay Gattuso shirka jaraa'id shalay Gattuso wax ma qari macallimiinta qaarkood wax qariya jiro Chiesa waxa uu ciyaas uga istagtaal asaad diido ila qaranka listiga waa ku daray wuxuu dhowr macallin ma ciyaaray hadda Talyaaniga markuu xidhay media Chiesa daacad ma qaranka maraba buuq badan la abuuray laakiin Gattuso wuxuu dhac ciyaaraanka aan tixgelino horumarku sameeyay waa la socday markaan qaran ku soo laaban wuxuu macallin hadda xilli aan qaran ciyaari kara ma joogin moral ahaan ma fadhiyo u dhahay kooxeeda isbuuc kasta uma ciyaari u dhahay marka meel iska soo saaro aan qaranka iimaanayo u dhahay ka waran markii taas waxaan dhigi karaa Liverpool Arne Slot kaalin weyn ay ku leeyihiin January-dan hadii la gaaro oo hadda uu koox kale uu ninkan uu raadsado macquul way ciyaaryahanka hadda week dhama ciyaarayo waxa laga yaabaa inuu 4 daqiiqo 6 daqiiqo ciyaartan uu ka qayb qaato bilbil uusan dheelin qaramadii hadda la aadi waa iska tababarna marka laakiin fursad soo uma qaran intuu raacad labadan kulan wax ka soo dheelo ama xitaa ninkan laakiin niyo hadda qaramadii waa way adeegin in lagu dhaafo ninka wuxuu ka cabsanaa eed
waayo fiir qaranka talyaaniga hadda si fiican u socdaa laba ciyaaro finaal sugayso laba finaal sugayso Norway miya iyo Moldova muxuu ahaa weerarkooda way fiican yihiin Mati Rigi miya ciyaartooyda ay haystaan hadda marka adoo hadda ku cusub kooxdii ayaaba laga badiyayba marka eedi iyo mas'uuliyadda dhankaagii ay fuulayaan marka taas in ciyaartooyda ka carray anaga sida u fikirin inta badan uma fikirayaan nimankii Brazil iyagana waxay joogaan London Emirates ku dheerayaan aad iyo aad ciyaar arkay Carlo Ancelotti iyo ciyaartooydii oo wada kulmaayay ninkii Mikel Arteta ah aad iyo aad laakiin Ancelotti waxaan arkay kuwa waxay u soo qaateen sawirro borar dhahayeen iyagartiyaaga qaranka ma ugu wacdi ninka uu ciyaar Brentford waana mudan yahay markii si loo fish ninkaas garka weyn leh Brazil national team in la wacba mudan yahay laakiin Ancelotti waxa waa kulli shirka jaraad markuu qabto ka hadli doona hadda marka la fiirsho Brazil tii weeraryahan Thiago kala ma haystaan 15 bishan sabdiga ku ciyaarayaan London Senegal la ciyaari doonaan isla sidoo kale London la sii joogaan 18 bishan Tunisia la ciyaarayaan maadaama Brazil hor World Cup soo baxeen bisha horena Korea iyo Japan la ciyaaraan hadda khaldanin oo Korea ka badiyeen shanka ka badiyeen Japan ayagana ka badiyeen haddana waxay balanseen Senegal kulan adag waa igu soo arad ma sabdiga waa Senegal waliba Ingiriiska gurigooda ku tumay sabdiga waa 15 bisha haddana 3 maalin kadib waxay la ciyaareen Tunisia waa laba kulan marka oo Brazil isku diyaarin karaan marka Afrika balanseen wadamada laftigooda waxay u tahay diyaar garow koobka Afrika World Cup labada u soo baxeen Senegal iyo Tunisia koobka Afrika way dheelayaan aad iyo dhankayga waxaan u jeedaa Lamine Yamal hadda qarankiisa ka baxay Spain akhbaarta u jeeda dhaawac dhanka gumaarka ninka ma dhow baliilo waxa xaaladiis yarkan sayelnaniyo waa ka meesha hadda koorna waa sheegtay meeshaas ma reestaa ma reestaa meeshaas waa macluumaad waaye ya wax la qariyo ma hay niyo ciyaartooydan waxa u badan hadda qaliinkan oo qaska ah balmaro kala muddo la maqan safiican laakiin waxa laga yaabaa soo caafimaad ciyaaryahan Karim Mahid wali waxa waa ciyaartooyda oo under 25 ka ciyaartooyda 25 ka yar niyo waxa hadda marka dib loo fiiriyo dhaqaatiirta ay leeyihiin waxa keeno daalkan faraha badan iyo in hasaawo badan iyagoo dhaawac qaba ay sameeyaan oo baashaal iyo adiga waxyaabo aan mamnuuc ah ciyaartooyda inay sameeyaan oo ciyaaryahanka dhulxiisa iyo lafihiisa ciyaaryahanka markuu galoonka galo energy uu ka baxo orod fara badan uu sameeyo dhaawac hadii mar dhaawac uu ku ciyaaray El Clasico dhaawac uu ku ciyaaray kulankii Paris adaa sheegtaba in deeku uu yiri macalinka geli kulamadii kalaba marka qalin uu u baahan yahay hadda kulamadii Georgia hadda laakiin waxa la Isbaanishka waxay dhaheen maadaama qaranku u soo raacay inuu Barcelona ku laaban doono u baahantay sababta xal 7 maalmood ilaa 10 maalmood nasiino u baahan 10 days kulamadii dhamaanayaan labada kulan la ciyaarayba hore ka dhamaanaya marka 10 maalmood markuu nasto kadib haddana waxay ku xiran tahay tababarka uu sameeyo in la fiirsho darbada mideeda kale tan meeshan qaska iyo gumaarka iyo meelaha ciyaartooyda ay ka nuuxsadaan waa banooni ma wada kartid baad gumaarka xanuuna sadartay marka wuxuu u baahan yahay xitaa markuu 10 cisho nasto kadib tababar inuu sameeyo istiraaj murqaha jiijiido qaabka banooniga u darbeyn karo daqiiqadiisa la xakameeyo marka Yamal ma dhow ama fiican tahay in la dhaha sanadka inta ka dhim iska naso macna laba bil Barcelona waa ka maarma hadhow Janaayo soo fresh u imaado haddii hadda Barcelona hadii lagu wado waxaan ka cabsanaa wiilka marka dambe in loo jaro muddo dheer dhaawacan faraha badan Rodrigo kala waxa ku dhacay fiiri asoo dhaawaca oo soo kabashay waqtigiisa ka dhiman tahay garoon la soo galay wixii kale hadda Man City inay ninkan muddo ay waayaan asoo caafimaad qaba hadda fadhiyana aan dheelsiin ciyaartooyda marka hadii Janis sida loo siinin dhibaato qabi karna hadda ustaadi waxa u jeeda akhbaartan ninkii Mauricio Sarri ahaa waxa leeyahay waxa laga yaabaa in shaqada laga raacdiyo Lazio xaalad xun ku jirta maamulka kooxda kalsoonida way kala laabteen ninka Mauricio Sarri Lazio ka tagay oo ku soo laabtay wuu baxay oo soo laabtay macnaha Napoli ba qaar selectives inuu qabtaan jeclaha Juve oo qabtay aadiya Lazio balanqaad hadda u sameeyay mar dhaxad ka tagan wuxuu kaga tagay kooxda top 4 keena waa dagaalama ciyaartooy looma keena wuu ka tagay haddana markuu soo la madaxweynaha wuxuu ku soo celsho wuxuu dhabar soo laabanayo ciyaartooy lagu keena wax loo keena malahan niyo jabo la kulmay saare marka dadka dulqaadka badan ma sababtoo ay hadda hal sigaar shitaba go'aan iska gaaraya marka hadda waxay u badan tahay waxay isku dhacay madaxweynaha guuldarooyin kooxda ku socdaan xaaladda ay xuntahay ciyaartooy la siima joogan iyo haddana dadka dhibaato leedahay baliilo dadka Talyaaniga Soomaalida kale waa laba u sheekaystaan ay Rami u shidantahay Lazio way ka dansantahay macnaha taas xataa culays ku tahay maamulka oo Lazio maadaama isku xaafad ay yihiin taageerayaasha sheekaysanayaan marka albaabka in laga diro u badan tahay Sarri waan la raadeynaysan islee safiican in kulli arki doona kulli kulamo saaxiibtuna usbuuca dambe bilaaban doonaan weekend gabagabadiisa Europe iyo Africa iyo Latin America iyo xitaa wadamada inkastoo qaarkood ay dheeli doonaan kulamo saaxiibtinimo wadamada Latin America kala ay soo baxeen ba ayaga kulamadooda way dhamaadeen Africa kale sidoo kale Israel koobka adduunka oo dhamaaday bari u faajira si fiican oo World Cup ka ah si fiican Soomaaliya laftigeeda hadda way ciyaari doonaan marka si guud waxaan rabnaa inta ku soo gabagabaysano Soomaaliya under 17 dheelayaan under 17 wuxuu ka dhici doonaa dalka Ethiopia salkan Dadir Amin maxaa leedahay
daadir nuur amiin hadduu koobka u keenay weliba markii ugu dambeysay koobka aan soo qaadnay Ethiopia ku soo qaadnay aad iyo aad daadir wuu bit badan yahay sidoo kale tan marka la fiish annagana under 17 aad ugu fiican tartamada ugu dambeeyay mid waa qaadnay mid sama final gaarnay mid filan laga qaad laba gool naga qaaday marka aad Soomaaliya ugu fiican under 17 waxaan rajaynayaa marka inay ku soo guuleystaan waliba ciyaartooy bandhig fiican sameeyaan waa la wada mustaqbal fiican leh si fiican oo ciyaartooydii hadda tartankii dheelay iyo kuwa kale gobolada dalka laga keenay xitaa hableeyni xitaa waxa ayaga laftigooda way safreen marka si guud waxaa moodaa isboortiga Soomaaliya in hadda xoogaa yar uu soo kabcay marka si guud daawadayaal barnaamijkeena waqtiga ugu dhacay waa idinku ku maasantiina socodka barnaamijkeena nabadgelyo